أوي بريسي عانو لقى رئيسي meesha waa la isku dowladeynayaa waa magaaladii muqdisho firawal villa Waradigley madashana uu goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayuu si rasmi ah taliyay hore ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sulub Ahmed Firin oo xilka ugu wareejiyay Soomaaliyeed baa lagu leeyahay boogta Soomaaliya lama oran karo boogta meeshaan waxa wada fadhiyay dee reerkii Hawiye iyo reerkii Daarood iyo wax la isku soo arooriyay iyo meesha lama kala maqnaa iyo in far badan oo suubis ah sidii caadada ahayd next clip aan eegno ilaa shaaha sokorta lagu soo darayo birtaaba ka suuqa ku dhac jirtay korneelada cusub oo la sheegayo waa yiri salaatu iska bixiyay koobka ii doona shaahi ii doona adna doono anigana ii keenaan korneelada cusub baa lagu soo birtaaba ka suuqa ku dhac jirtay korneelada cusub oo la sheegayo waa yiri salaatu iska bixiyay koobka ii doona shaahi ii doona adna doono anigana ii keenaan dhaxay yaanu waxaan baray it's not about dumarnimada imay darajada ya meeshaan ay tahay sokor kugu soo dara ama ka yareeyaa ku dhahay markaa ama ku soo cadeeyo yiri ha aan boor wali ugu soo cadeeyo aan geel mujahid waa asad diyaana laga hadlayaa caana boor inuu shaahada ku soo cadeynaya hadda sidii caadada ahayd next clip ina diyaana marka muqdisho aaday celebrity buu ka noqday TV gaariga jiro wala jaa bilaa basa ugu dhalata bacda wallahi reer farxada ay taabay hadi arab marka anyways qof out soo saaray laakiin waxa weeye picture baa la iska qaadayaa diyaano waa khatar baada bay 10,000 oo telefoon baa muqdisho yaala qol bay ku jiraan dad baa lacag lagu siiyaa inay like tay share iyo follow iyo waa reer reer muqdisho ma maqash qof walba la soo kala kicinayaa oo dee ma garanaysaa propagandadaasi waxaas faafiya waa una anaga moogti la shalay anaga social media maana soo galin sida loo faaninayo karaya inaan asxaab last 3 days diyaaradaha ay Nairobi ku baxay waxa la leeyahay dadka saaran qasayb socdaan badan oh that beautiful يا الحافظ وينادي و ده مقع كلا ناس كده هذا يهد موت يا الحافظ وينادي وينو هي البوساسة أمبلينا موت مرافقنا مدوي كوزا وينادي إلا يوروب أمريكا dadkii ugu ilbaxsan Soomaalida aan sii socdo oo soo socdo laakiin waxaan qirayaa inaan muqdisho joogo markii la dooranayo hadda ma ahayn taas ay idin sheegayaan muqdisho inaan joogay baada way lacag baa lagu siin karaaba gabadhan qadiyadeeda mar far badan cunto fiican aniga cuntooyinka soo dhigto aniga waan daawada waa gabar Soomaaliyeed laakiin qabyaalada kama foga كما فوق وانا عديستا لكن waxay yara qorxisayno waa Soomaali oo dhan anaga oo dhan waa ka mid nahay moogto qof walba reerkiisa inuu faaniyo xiradu ku jira oo yiraahdo waxa weey wax xirada ugu fiican waa wax muhiim ah moogto laakiin in laga munaafaqadeeyo daran moogto marka waxa jirta ana rufani ya aniga degaankeyga waxa waaye ma garanaysaa ciyaal xaafad ka soo baxa moogta ya ciyaal xaafad ma jiraan garow ku nool miya qaar harkiisa ku nool ma jiraan miya qaar Kismaayo ku nool ma jiraan miya qaar Barca ku nool ma jiraan miya xaafad ciyaal xaafad ma muqdisho bas laga yaqaan ya adar jingadaha meesha kala taga iyo waalidana qodaysa sidii caadada ahayd last clip ايش عندك تشوشينا والله هذا كان جوجيا واي فوضى مره هاي ده هذا كان جوجيا واي انا كانوا معلي بار هاي هذا ما كان اما وين والله مسنا وين والله
hadalkayga joojiyaa rabaa soo meesha ma joogaan ciidanka booliiska Soomaaliya dadka meesha fadhiya soo saraakiishii loo sheegay ma aha oo wixii lagu tababaray hadalkayga joojiyaa rabnaa hadalka la joojiyaa laga kari lahay meeshaan naga joojiyada hadalkayga joojiyaa waay wala sidii wala istaagista waxaan rabaa inaad meeshaan naga joojiyada hadalkayga joojiyaa waay waa meesha arkaysaan meesha waxa lagu hayo kala aamusa sidii caruurtii baa la aamusiinayaa dadka raba inay noo dowladeeyaan kamarada waxba laguma samayn kara moogta ficil baa loo baahan yahay hadalna wax ma taro yaa maamaha baa jirtay raxan weyna ama af maamay ah oo la yidhaahdo af aame maamada mar walba igeebeysa laakiin afku waa joogaa se waana garanay maamada yana isdhibin anyways xasanna waa kanaa dee islaanta ilkaa cadcad leh merin turki ah baa qabsatay Hassan, good president, good job. Arun may ladlaysaa lix president meesha ma joogi kartaa adaa president baa la yiri mugda shanta kale eri waa dad dictator usoo bartay mugda sidii caadada ahayd waxaa la yiri asadiyaanada waa kaasa waa lagu kala kiciyey meelo fara badan baa lagu kala kiciyey isagana wuxuu leeyahay bowe bariis iyo caano laga raysay halkaan ayaa kusoo gabagabaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu